website ka caawin kara in aad online ka lacag ka samayso so mid kamid ah qaababka ugu fiican ee qofku uu online ka lacag ugu sameyn karo waxa weeye marka in uu product uu hayo uu iibiyo ama uu isticmaalo wax la yiraahdo e-commerce so e-commerce ka qaybo badan oo kala duwan buu qofku wax uu iibin karayaa waxa uu iibin kartaa in aad iibiso product ay iibinayso for example caagan biyo kala iibinaysa dad baa doonaya inay ka iibsadaan adaa xayeysiiso online baa ku iibin kartaa sidoo kale waxay iibin kartaa alaabo product digital ah oo marka aan la taaban karin sida buug baa iibin kartaa guides baa iibin kartaa iyo waxyaabaha la midka ah hadda muuqaalkan waxaan doonayaa in idin la wadaago website ka caawin karaya in aad fududeyso waxyaabaha online ka ku iibinayso waxaan idin barayaa website awood ku siinaa in WhatsApp ka adigoo isticmaalay aad dhammaan e-commerce ka ku maamuli karto soo socono WhatsApp wuxuu ka mid yahay communication channels ugu fiican ee Soomaalidu isticmaalaan Soomaalida inteena badan emailski waxaan naga man fahamsanin marka WhatsApp wuxuu ka mid yahay waxyaabaha bilaashka ah ee communication channels ka isticmaali karayo si marka adiga iyo customer-kaaga u wada xiriiraan hadda waxaan doonayaa muuqaalka in idin la wadaago sidee baad products ka iibinaysid sida productyada physical-ka ah iyo kuwa digital-ka ah aad ugu iibin kartaa qaab fudud adigoo isticmaalaya WhatsApp-kaaga anigoo markaa idin bari doono website free ah oo qayb free leh haddii business-kaaga uu yahay business fiican oo lacag badan soo saarayna qaybta aad iibsan karto business-ka oo lacag yar laga qaado doono bisha laakiin haddii beginner aad tahay 100% website-kan bilaash oo isticmaali kartaa marka inta muuqaalka ugu guda galin waxaan idin ka codsanayaa in muuqaalkan inoo sii share gareysaan si dad badan oo markaa doonaya in online wax ugu iibiyaan ay uga faa'iideystaan haddii aad ku cusubtahay platforms-keena waxaan kugu dhiirigelinayaa ku soo biirto marka soo dhawaada aan isla eegno kan aan sheegayo ama website-kan aan idin sheegayo magaciisa waxa la yiraahdaa tech.app hadii halkaas u fiirsato just marka doonaysid inaad diiwaan geliso website-kaas baa furi doonta linkigiisana waxa idin soo dhigi doonaa comment-iga koowaad application-kan ama website-ka marka soo gashid wuxuu awood ku siinaa in aad ka dhex furato store qaabku u shaqeynaysa isaga waxa weeye marka store ka furto hadii qayb waxa jirta lacag ah qofku iibsan karo oo domain name ama magacaada aleedan ku xiran karto tusaale ahaan dukaankaaga.com oo kala ka dhigin kartaa si marka aad magacaaga white list ugu samayso toos adiga marka aad u isticmaasho sidoo kale aad doonaysid inaad free isticmaasho wuxuu ku siinayaa tech.app/store name-kaaga marka uu simple uu fudud yahay waxyaabaha uu ku fiican waxa kamid ah isaga 100% wuxuu adeegsanayaa WhatsApp-ka oo communications-ka iyo qaabka wax loo kala iibsanayo WhatsApp ku isticmaalaya sala socotaan inta badan dadka e-commerce isticmaala Soomaalida WhatsApp-ka aad bay u isticmaalaan hadii qof uu wax ka dalbado wuxuu sameyn doonaa qofka wax dalbadana fariin baa u dhici doonta u sheegaysa marka order-ka inuu dhameystiro sidoo kale qofka store-ka iska leh oo adiga ah hadii store ka furto wuxuu ku soo dirayaa marka fariin ku sheegaysa marka order cusub inuu soo dhacay lacagta hadii la bixiyay qofka communication-kiin dhan xagaas buu ka soconaya marka waxa weeye qaab cajiib ah qofku isticmaali kar si uu u fududeeyo marka waxyaabaha uu iibinayo hadda aniga waxaan ku dhex jiraa dashboard-kayga oo halkan waxa weeye qaybta store-ka qofku ka maamulayo oo product-yada uu ka abuurayo orders-ku kala soconayo wixii kale ku saabsan settings-ka store-kiisa xagan uu ka manage garanayo marka saad u jeedaan dashboard-kayga wuxuu ii sheegayaa marka hal sale inaan sameeyo sample anaa marka dibad ku tijaabinayo wuxuu ii sheegayaa inta qof store-kayga soo booqatay iyo inta order marka ii yaala marka hadda halkan waa qaybta admin-ka oo qofka store-ka iskala uu ka arkayo store-kiisa laakiin qofka customer-ka isaga waxa ma arkayo wuxuu arki doonaa mid sidan ka duwan kaliya waxa uu soo bixi doona marka product-yada iibiso halkaas uu ka dalban doonaa marka si ay idin tuso page kala furanayo iminka oo aan admin-kan ahayn oo qofka customer-ka markuu isticmaalayo uu ka arki doono marka si taas aan u galo waxaan furayaa tech.app/Acer Academy so kan waa store-ka aniga aan samaystay ii furan marka intaan siiyo xagan buu keenayaa just waa store-kayga kan waxyaabaha kala cajiibka uu leeyahay tech.app waxa kamid ah qofka marka ugu horeysa uu soo galo store-ka waxa la weydiinayaa WhatsApp-kiisa so tan waxay keenaysaa in qofka marka customer ahaan WhatsApp-kiisa laga sii hayo waxa markuu order sameeyo automatic la garanayo qofka waxa iibsaday marka WhatsApp kala aan leeyahay gelinayaa si example kan ay idin tuso kan admin-kana WhatsApp gaar aan ku xiray kana WhatsApp kala aan ku xiray si marka communication-kina dhex maraya u aragtaan marka adeertaan WhatsApp-kay markaan galiyo xagan buu keenay xagan waxa arki doonaa marka Acer Academy magaciisa halkaas hadaa doonto loogada bedeli kartaa qaybta admin-ka ka soo bedeli kartaa marka xagan qofku wuxuu ku xiran tahay product-yada uu gelinayo qaybta gees waxa ka arki kartaa store-kan qaybaha kala duwan ee product-igu iibiyo soo category kala duwan oo samaysan kartaa aad doonaysid xagaan waxa ku arki doontaa marka product-yada hadda ku jira website-ka oo qofkan uu iibinayo soo Acer Academy buugan buu iibinayaa soo product-gan oo product digital ah product-yada hore ku sheegay wuxuu noqon karaa qaar physical ah oo qofka alaabtu toos uu iibinayo iyo waxa jiri kara marka product-yo digital ah like hada buu iibinayso kale iyo waxyaabo la mid ah just qofka sidaan oo kale uma baana shipping waxa in loo sameeyo markuu iibsado oo lacagta aad ka qabato linkigii wax laga iibsan lahaa buu marka automatic application-ka u diraya oo qofka marka saas buu ku leeyahay product-kiisa laga waxaan doonayaa marka in ay iibsado aniga
add to cart baan dhahay add markaan dhaho wuxuu ii sheegaa marka cartiga in lagu riday carti waan tagayaa xagaa marka wuxuu ii sheegaa check out kii soo check out markaan taabto wuxuu ii sameeyay marka hadda orderkaygii hadda ujeedaan orderkii aan ku guuleystay as customer ahaan hadda waxaan ku guuleystay in aan orderkaygaan dalbado haddii qaybta adminkaan kusoo noqdo hadda wuxuu ii sheegi doonaa marka orderska daan tago wuxuu ii sheegaa marka hal order inuu soo dhaco hadda oo marka pending uu ku jiro isaga qofka marka haddii dib aan ugu noqdo account-ka kale WhatsApp-ka kale xaggan iga furnaa oo marka aan halkan kusoo noqdo waxaa ii soo dhici doonta marka fariin ay ii soo dirtay take.app so kan waxaa weeye customerkii weeye qofkii wax iibsanaya weeye kan marka wuxuu ii sheegi doonaa marka orderkayga marka in lagu guuleystay oo lacagta marka laga hayo haddii aan doonayo marka in aan la xiriiro qofkaana waxaan taaban karaa marka numberkiisii WhatsApp so WhatsApp-kaas wuxuu noqon doonaa qofka store-ka iska leh ama aad wax ka iibsanaysa adiga customer ahaan haddii numberkiisa qofka marka click aasiisid waxaad samayn kartaa in halkan kala hadasho tiraaho waad ku maasantahay adeegii alaabta ay soo gaartay wixii caawashaa qabtay numberkaas ugu gudbin kartaa marka waa qaab yar oo smart ah oo dadka online wax ku iibiya iyo customerskooda ee marka wax isku dhaafsan karaan productyada ay iibsanayaan taasoo meesha ka saaraysa marka manual qofka inaa wada hadashaan kay marka hadhow waxay imaan doonto un orderkan lacagta qofka inuu bixiyay in marka productyada ay gaadheen un inaa ka wada hadashaan oo marka imaan doonto marka orderka marka koowaad uu dhaco wixii ka dambeeya marka adiga marka shop haysato wuxuu ka caawinayaa in dadkii ay wixii soo dalbadaan oo dalabkii marka uu fududaado sidoo kale communicationka adiga customer ka idin dhex marayaan uu fududeynaya waxaan jira muuqaalkan wax badan ka faa'iidaysteen noo sii share gareeya wixii su'aalaha qabtana comment nagu soo qor assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh